السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي وأنا من عبد الله هل كذا جلس وقتنا وشلنا من عبد الله waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo waan idin soo bandhigo sidii aan hore idinku balan qaaday sidaas oo si toos uga dhacday magaalada Muqdisho waxayna kala dhex martay wiil iyo gabar ay gabadhu camool tahay sheekadan waa sheeko aad u xiiso badan kadib wiilka ayaa gabadha indhaha u fiiqaya oo kharash gelinaya waa sheeko aad u dheer insha Allah qisadan waqti ayay igu qaadatay inaan idin soo gudbiyo ama waan idin soo diyaariyo in muddo ah ayaan diyaarinayay soo diyaarinteeda insha Allah iyo isku dubaridkeeda baartiga ugu horeeya maanta ayaan idin bilaabi doonaa ee ila socdo insha Allah anoo ku hadlaya afka wiilkaas ayaan qaab noocaas oo kale ayaan idinku soo tibinaya insha Allah la socod wanaagsan sheekaduna sidan ayay ku bilaabatay in cabaar ah hadii aan dhacdid u jiifay oo aan hurdo ku sari waayay ayaan mar qora soo hinqaday oo aan soo fariistay aniga oo inta labada gacmood kor u taagay 10 kafaroodna isdhaafiyo oranaya kadibna qoorta jucsanaya waxa ay hayay caajis baas oo aan garanayn halka uu igaga yimid waxaan se u qaatay in dhafarkii habeenkaas aan ka qaaday cayaar ka mid ahayd horyaalada England oo aan daawaday ay hurda la'aanta iyo caajiska igu wacnay goorsheegtada ayaan eegay waa saacadii mise waaba 3:15 daqiiqo waaba 9 habeenimo waqtigu socod gaabana baa intaan anoo cishoonaya eri dib sarirtiisa ugu tuuray inta kadib waxa ii xigay cod i oranaya Xamza ka kacmaam saaka hurdada waa ku daahadee markaas baa anoo saacabada isaga celinaya falaaraha arooriyad soo kacay mise waaba hooyadii Maryam hooyo baa igu tiri bari waxa baxaya asad ee aroor hore kici Soomaalidan ee oran hooyo orod ka kac waayahay maama baa intaan iri xaf ka soo dhahay sariirtii haddaan saacada eegay waaba 6:15 daqiiqo oo 15 daqiiqo baaba ka hartay xilligii 6:30 daqiiqo oo ku balansanaa inaan asad u raaco garoonka diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho oo uu maalinkaas ka dhoofayay aniga oo aad u degdegaya baan gaarigaygii ku soo dhacay waxaan aniga oo xawaare ku soconaya isku soo dhigay wadada dheer ee wadnaha kadibna dhinaca bidix ula leexday isgoyska howlwadaag waxaan fooda sii saaray dhinaca iyo sayidka dabadeedna midigiisu la dhigay wadada Maka al-Mukarrama aniga oo ku sii wajahan xaafada Tiribiano oo uu saaxiibkii asad ku noolaa markii aan la leexday jilcadaha laga galo xaafada baa mar qura indhaha igu qabteen qof wadada bartankeeda taagan mise waaba gabar waxa ay ahayd qof aan dareemayo inay duruufo daashadeen balse qurux dabiici ah ilaah ku manaystay hadii ay hesho qof dayactir ku sameeya macnaha dhaqaaleeya waxa ay lahayd midab biyaha dahabka ah oo kale ah waxa aad ii cajab galiyay indhaheeda buurbuuran iyo suuniyaheeda bil dhalatay oo kale u qornaa markii aan in cabaar daawanayay ayaan bilaabay inaan hoonka u yeeriyo mise maba dhaqaaqayso haddana dhowr mar ayaan yeeriyay hoonkii maba la nuuxnuuxsi markaas baan intaan gaarigii ka degay qaylo dhagaha kaga shubay anoo oranaya adiga ma wadada baad iibsatay maxaad ka dhex taagan tahay wadada jawaab baan filayay aamusnaan bay iigu jawaabtay mar labaad baan qayliyay anoo wajiga gacanta feerahayga ka gelinaya misna dhahaya oo maxaad noo quursanaysaa maad nala hadashid oo wadada ka leexatid wadada maada iibsaday mise lacag baad kala baxday wadada balse jawaabtii aan ka helay waxay noqotay ilmo indhaheeda mar qura ka soo dareertay naxdin iyo aan fariir baan qaaday waxaan sheegana waan garan waayay ilbiriqsiyo markii aan aamusnaa baa aniga oo hadalka gefgefaya cabsina ay igu jirto waxaan iri abaayo iga raali noqo hadii aan wax qaldan ku dhahay ama talaabo qaldan ku dhaqaaqay markaas bay iyada oo qarqarayso cod naxariis leh wadnahayga gilgilay igu tiri ilaah indhaha kuuma siin inaad ku jeejeesto anigana iima tirin qalad aan galay waa cibra qaadasho inaan waxba arkin oo meel aan u dhaqaaqo garanaynin waad aragtaa markaas baad qaylo dhagaha iga jabinaysaa markii ay intaasi afkeeda ka sii idlaanayeen aniga waxaan lumiyay hadalkii naxdintii ahaysay kun jeer ayay sii laba jibaarantay